kulanti wacan oo wanaagsan daawadal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada kugu xiran waxaa ka mid noqon doona war murtiyad la filayo in maanta laga soo saaro shirka golaha watashi qaran ee looga hadlayo arrimaha abaaraha iyo dagaalka dhanka al-shabaab. qodobada ugu muhiimsan ee shirkaas kasoo bixi doona ee muddo kororsiga laga cabsi qabo in ay ku dhawaaqaan ayaa daawo doontaan. waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa booliiska Soomaaliya ayaa digniin adag kasoo saaray qorshe ay wadaan odayaal dhaqameed ay doonayaan in wada hadal laga galo kiis dhawaan ka dhacay degmada Kaaraan. haweeney da-aheed ayaa dishay gabar yar oo 7 jir ah u shaqeynaysay si foolxumo ayay u dishay. haweeneydaas ayaa waxaa odayaasha ka socda ay sheegayaan ama ay wadaan qorshe ka dhan ah in markaasi wada hadal arinta lagu dhameeyo. hase yeeshee ehelka gabadhooda dilay ayaa ku doodaya qudhooda in markaas loo qisaaso. waa daawo doontaan. qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaa maanta ka degmada Buuloburti gobolka Hiiraan dagaalka dhanka al-shabaabna waxa ay sameeyeen ballanqaadyo. wararka caalamkan waxa uu weyn Mareykanka Shiinaha waa qatarta ugu sareysa buuridanaha dalka Mareykanka. qodobadaasaan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale arrimaha caalamka diblomaasiyadda. fadlan haddii aad noqoto subscribe noo gambarka furnuusi shargareeya saaxiibadii meel kasta jooga idinku commentiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin. aanu ku bilowno daawadayaal. muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in go'aamo iyo warmurtiyeedo ay ka soo saaraan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ku maamul goboleedyada kadib shirka golaha watashi qaran ee ugu socday magaalada Muqdisho. madaxtooyada dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka sida aan warar ku helno shirkan oo labadii maalin ee la soo dhaafay socday ayaa looga hadlayay arrimo badan oo ay ugu horeeyaan dhinaca amniga gaar ahaan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo si guud ahaanba dalka looga saari lahaa al-shabaab. madaxda shirka u dhexeeya ayaa inta badanba isku fahmay qodobadii shirka looga arrinsanayay waxaana socdo diyaarinta warmurteedka shirka lagu cadeynayo go-aanada ay madaxda wada gaareen. shirkan oo isku yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxdooda ayaa kusoo aaday xilli xasaasi ah oo dalka qeybo ka mid ah ay ka socdaan dagaallo la doonayo in al-shabaab markaas looga adkaado. dagaalka dhanka al-shabaab waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda si rasmi ah ugu socda deegaanada Hirshabelle wuxuuna uu doonaya madaxweynaha in dagaalka markaasi laga bilaabo guud ahaanba dalka maamul goboleedyada markaasi fadhiyana ay qeyb ay ka noqdaan oo deegaanadooda markaas ay arrintan ay ka xoojaan si al-shabaabka guud ahaan wadanka looga saaro. dhinaca kalena saaxiibayaal booliiska Soomaaliya ayaa ka digaya in ay odayaal sameeyaan waxa la yiraahdo xeer dhaqameed iyo in wada hadal laga kala kiis dil ah. booliiska Soomaaliya ayaa digniin u diray odayaal dhaqan oo la sheegay inay markaas hortaagiin maxkamadaha dalka kuwaas oo doonaya inay xeer dhaqameed ay ku xaliyaan kiiska gabar 7 sano jir ah oo maalmo ka hor markaas lagu dilay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. afhayeenka booliiska ayaa la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in booliiska Soomaaliya aysan yeeli doonin in kiis dambe oo gacanta lagu hayo qofkiisana markaasi lagu xalin doono xeerjabka Soomaalida. wuxuu sheegay in gacanta ay ku hayaan haweeneydii qaratay inay dishay gabadhaas yar ee shaqaalaha u ahayd sidoo kalena uu meesha ku jiro dambi kale oo ah in cunug saqiir ah aan markaasi la shaqaaleysiin karin. xeerkani dhaqanka ma xumo laakiin malaha ciddii qaadan lahayd dambiga sharciga dalkan wuxuu dhigayaa in la helo qaada mas-uuliyadda dambigii dhacay. marka dambiyada dhacayana dhaqan in lagu xaliyo uma rabno ayuu yiri Sadiiq Doodisho afhayeenka booliiska. afhayeenka ayaa intaas ku sii daray in cunug saqiir ah aan la shaqaaleysiin karin sida sharciga dalku dhigayo balse hadda uu dil meesha yimid taas oo qasab ka dhigaysa in dambigan lagu xaliyo garsoorka dalka. waxaan ka digayaa in xeer dhaqameed lala soo aado dambiyada noocaan ah sababta ayna usoo laabanayaan waa sida loo xaliyo waana u diganaa buuri odayaasha doonaya inay dhaqan iyo xarjab ay ku xaliyaan kiiskan ayuu yiri afhayeenka booliiska. haweeneyda oo loo haysto dilka gabar yar oo 7 sano jir ah isla markaana uu booliiska shaaciyay inay qalatay dilkaas iyo seegeeda ayaa la soo xiray maalin ka hor. wuxuuna booliiska Soomaaliya ku adkeysanaya in kiiskan sharciga la marsiyo isla markaana tiirka cadaaladda la geeyo haweeneydaas markaa ka dambeysay dilka gabadhaasi 7 sano jirkeed ee u shaqeynaysay. Soomaaliya ayaa kiisaska noocaan oo kale ah markaas muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay ayadoona siyaabooyin kale dadka Soomaaliyeed ay uga hadlayaan. qabii hore ayaa daawanaysan channelkeena saaxiibayaal haddii aad noqoto subscribe noo soo gambarka furnuusi shargareeya saaxiibadii meel kasta jooga idinku commentiga like inoo reebay aad baad u mahadsantihiin. bal markaana aan aadno Buuloburti iyo dhanka iyo Hiiraan. xildhibaan Maxamed Buraale iyo xildhibaan Maxamed Abduqaadir oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Hiiraan laga soo doortay ayaa kula hadlay dadka beeshooda inay u istaagaan la dagaalanka al-shabaab. xildhibaanadan oo dadkooda ku dhiirigeliyay halganka ay ku jiraan ayaa u ballan qaaday inay dhex joogi doonaan deegaanada beeshooda
inta dagaalka ay kula jiraan al-shabaab. xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in markaas xildhibaan maxamed cabdiqaadir ayaa wuxuu sheegay dagaalka lagula jiro buu yiri cadowga Iiraan wuxuu ku bilowday si fudud oo aanay horey loogu ballamin, balse maanta wuxuu marayaa in Soomaaliya oo dhan ay ku baraarugto mana ka hari doono shabaab ilaa dalka markaas laga wada xoreeyo ayuu yiri xildhibaanka. dhankiisa xildhibaan Buraale ayaa dadkiisa u ballan qaaday markii lagu guuleysto al-shabaab inuu u dhisi doono goob waxbarasho iyo xarumo caafimaad. wuxuuna ugu muhiimsan buu yiri waxaa ugu muhiimsan ee aan howlgalka qayb ugu nahay waa in qawaariijta laga xoreeyo waa in lagu xoreeyo al-shabaab buu yiri dalkeena iyo dhulkeenaba si markaasi aan ugu noolaano si sharaf leh oo markaasi nabad ku jirto. halganka xoogga leh oo al-shabaab markaasi looga saarayo deegaanada ay heesaan ayaa ka socda gobolka Hiiraan, waxaana xusid mudan in siyaasiyiinta, saraakiisha, mas'uuliyiinta iyo shacabka Hiiraan gaar ahaan beesha Xabaadle aysan u kala harin dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab oo ah meesha ugu muhiimsan xudunta dagaalka. inkastoo shabeellaha dhaxana ay ka bilowdeen gulufka dagaalka, hase yeeshee weli halkaas far ayaa lagu gudayaa oo hanaanka markaas ay dagaalku u socdaana waa markaasi mid iska hadal ah oo weli dhaqdhaqaaqo sidaas u buuran ma aysan ka socdaan. qabiil dhex ayaa daawanaysaan saaxiibayaal, markasta hilmaamin inaad subscribe ina talada oo gambalka aan furutaan oo sii sheergareysaan saaxiibadii meel kasta jooga adoo commentiga like noo reebay aad baad u mahadsantiin. wararka caalamka waxaa uga weyn sida lagu sheegay qorshaha difaaca qaranka ee Mareykanka oo dhawaan la sii daayay dalka Shiinaha ayaa ah caqabada ugu sareysa ee danaha amniga qaranka ee Mareykanka, halka Ruushkana lagu tilmaamay in xaaladiisu ay tahay mid ba'an maadaama uu sii wado dagaalka axmaqnimada ee uu markaas ka wado dalka Ukraine. Jamhuuriyadda dalka Shiinuhu waa dalka kaliya ee tartan xoogan kula jirta Mareykanka marka la eego hindisaha in dib loo qaabeeyo nidaamka caalamiga iyo iyadoo markaasi ay sii kordhayso awoodda uu sidaasi ku sameyn karo ayuu yiri xogaha difaaca Mareykanka oo mas'uuliyaasha kula hadlay Pentagon-ka dalkaas. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka warbaahinta la hadlay asaase magaciisa la qariyay ayaa sheegay in awoodda Shiinuhu ay sii kordhayso isagoo horumariyay nidaam uu kula tartami karo Mareykanka marka la joogo dalalka caalamka gaar ahaan dhinaca militariga, dhaqaalaha, farsamada casriga iyo diblomaasiyadda. dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal, warbaahinta maxalliga Itoobiya iyo kuwa Soomaalida ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga hadlayay dalka garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga lagu geystay Allah u naxariistay xildhibaan Jubair Subcis oo ka tirsan baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida. sheekada ayaa weji kala yeelatay markii askariga lagu eedeeyay dilka Jubair isaga oo qudhiisa qirtay inuu si ulakaca markaas u toogtay marxumadda sida uu BBC-da u sheegay ku-xigeenka hogaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida Maxamed Axmed Gurey. warar ayaa kasoo baxaya dhacdadaas oo sababtay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo dalbanayay in cadaalad ay helaan qoyska Jubair oo ahayd 26 jir oo markaas ka tagtay 2 caruur ah. waaxda baaris waxay sheegaysaa in ninkan isagu dilka geystay oo qirtay inuu falkaas u geystay si ulakaca. Maxamed Gurey oo BBC-da la hadlayay sidoo kale waxa uu sheegay in ninkan dambiga ka hor qirtay maxkamadda 26 bishan ay ahayd maalintii ku xigtay maalintii uu dhacay dilka. si kastaba ma jirto ilwareedo kale oo madax bannaan oo arrinkan xaqiijinaya iyadoona aysan warbaahinta gubjoog u hayn dhegeysiga dacwadda. ku-xigeenka hogaanka dambiyada ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in uu askariga qirtay in dilka asigu markaa uu ka dambeeyay. waxa uu sanadkan sheegay wuxuu sarkaalka sheegay in maalintii uu dilka dhacayay maalintii ku xigtayba eedeysanaha la horgeeyay maxkamadda gobolka Faafaan maadaama aan lahayn karin wax ka badan 4 saacadood markii garsoorka la horgeeyana uu maxkamadda ka qirtay inuu asiga dilkaas ka dambeeyay. haddaba waxaa la rajeynayaa in markaa ciqaabta u dhiganta iyo falka uu ku kacay markaasi lagu ciqaabo. wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka